أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي ولكن أنا نور حسن حتى سوداتين كانال كان مقال برودكشن إن شاء الله ما برامج كان دي علينا حارة وين كل وداعو qaabka ugu fudud ee loo sameeyo YouTube thumbnail oo aad u qurux badan. Haddii aadan thumbnail aqoon, thumbnail waxaa lagu magacaabaa sawirka ka horeeya ee YouTube-ka muuqaalka ayaa loo yaqaanaa thumbnail. Waa sawirka xayeysiinta ah ee koreeya oo ku soo muuqanaya intaadan daawan muuqaalka ayaa thumbnail lagu magacaabaa. Marka insha Allah programkeenu ku sameyn doono program lala soo degayo ma ahan, waxaanu isticmaali doonaa browserkeena aynu isticmaali doonaa. insha Allah programkan waa program qof walba uu heli karo uu isticmaali karo. haddii aad internet aad haysatid waad isticmaali kartaa programkan. insha Allah muuqaalkeen maanta aynu ku baran doonaa programkan wuxuu yahay iyo sidoo kale qaabka loo sameeyo thumbnail oo aad u qurux badan. aynu gudgalno barnaamijkeena. ugu horeyn intaynu gudgalin barnaamijkeena waxaynu ka codsanaynaa kanaalka muuqaal production. haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar, videogan like saar, bal isku daya muuqaalkan like-tiis inaad gaarsiisin 500 oo like ah. aad u mahadsantiin dhamaantiina. ugu horeyn marka programkan waxaad ku isticmaali kartaa computerkaada, aad ku isticmaali kartaa marka browserada mobiladana ku fiiriya. inkastoo aanan browser mobile aanan ku isticmaalin balse wuu ku shaqeynayaa sida Chrome-ka iyo Firefox-ga. adi browserka aad isticmaashid buu ku shaqeyn doonaa insha Allah. marka si aad u aragtiin programkan waxaad soo furtaa marka browserka aad jeceshahay aad soo furaysaa. marka waxaad soo booqataa marka website-kan lagu magacaabo Pixlr ayaad soo booqan doontaa. linkiis waxaan soo dhigi doonaa marka qaybta hoose videoga description-ka. haddii aadan description-ka aadan aqoona comment-igu hore aan kugu bin gareyn doonaa insha Allah. marka shirkadan lagu magacaabo Pixlr-ka software-ka qaab online ahaan ayuu u shaqeynayaa. ugu horeyn marka waxaan kugu talinayaa inaad account ka samaysatid shirkadda Pixlr-ka. account in laga samaystana waa aad easy u tahay, marka waana free ka samaysta insha Allah. almost marka shirkadda tuulisheeda aad ay u fara badan yihiin. waxaynu ka isticmaali doonaa insha Allah 3 tool aynu ka isticmaali doonaa. tuulishan qaybtan sare markaad fiirisiin qaybtan waxaa lagu magacaabaa Pixlr X ayaa lagu magacaabaa. sidoo kale qaybtan kale waxaa lagu magacaabaa Pixlr E ayaa lagu magacaabaa. sidoo kale qaybtan kale waxaa lagu magacaabaa remove background ayaa lagu magacaabaa. marka Pixlr E-ga toolkan ayaa isticmaali karo, waxaa isticmaali karo qof ah advanced photo editor ayaa isticmaali karo. sidoo kale qaybtan Pixlr X-gana waxaa isticmaali karo qof waxyaabo graphic designer oo simple ah inuu sameeyo u baahan ayaa isticmaali karo. marka labadaba tuulishoodu ay kala duwan yihiin. almost marka hadda anaga waxaynu ku shaqeyn doonaa qaybtan ay ku qoran tahay Pixlr E-ga aynu ku shaqeyn doonaa. marka Pixlr E-ga aad soo furi doontaa. marka toolkaad u baahan tahay markaad soo dooratid almost qaybtan ayaad imaan doontaa. meeshan waxaa kugu diyaarsan template aad isticmaali kartid oo design ayaa kugu diyaarsan. haddii aad u baahan tahay waad bedelan kartaa. programka qaabkii Photoshop ahaan ayuu u shaqeynayaa. sidoo kale formatka PSD oo kale waad kusoo furi kartaa. marka meeshan waxaa kugu diyaarsan template ayaa kugu diyaarsan oo design aad u qurux badan. runtii midkaad u baahan tahay waad isticmaali kartaa, waana free dhamaantooda. marka anaga waxaynu u baahan nahay inaynu sameyno YouTube thumbnail. sida thumbnailkan ayaan hore usoo sameeyay. thumbnailkan aad u jeedin oo ka kooban background-kiisa wax loo yaqaano gradient. waynu baran doonaa gradient-igu wuxuu yahay iyo sidoo kale sawirka Maxamed Saalax aad u jeedin iyo qoraalkan Mo Saalax ay ku qoran tahay uu ka kooban yahay. thumbnailkan aynu sameyn doonaa insha Allah. marka almost qaybtan waxaan dooran doonaa ay ku qoran tahay marka create new aan dooran doonaa. qaybtan create new ay ku qoran tahay aan dooran doonaa si aynu u sameyno thumbnailka. marka qaybta create new-ga markaad soo furtid oo kale meeshan template ayaa ku diyaarsan. tusaalehaan haddii aad u baahan tahay Facebook cover oo kale, Facebook profile, waxyaabo badan Instagram-ka la xiriira ayaa ku diyaarsan. haddii waxyaabo custom aad u baahan tahay meeshan waxaad ku haysataa marka width-ka iyo sidoo kale high-ga, balaca iyo sidoo kale dhererka ayaad ku haysataa. marka anaga waxaynu isticmaali doonaa full HD aynu isticmaali doonaa. width-ku uu yahay 1920, high-gana uu yahay 1080. marka website-kana xayeysiin ayuu yar leeyahay. almost marka qaybtan waxaad ka sameyn kartaa marka background-ka hadhow kuu soo muuqan doono. haddii background-kan uu sidan uu ka yahay background oo eber ay kuu soo muuqan doono aanan meesha dhan aanan background lahayn, haddii aad u baahan tahay qaybtan background waad u sameyn kartaa. marka anaga waxaynu isticmaali doonaa background gradient aynu isticmaali doonaa. marka almost background hadda uma baahnin. qaybtan waxaan ku dhufanayaa create aynu ku dhufanayaa. marka iska fiiri waxyaabahan size-kan inay ku saxsan yihiin kadib ku dhufo create. marka hadda waad u jeedinayaan filaya hadda size-ka aynu soo sameynay background dhan ma lahan. marka waxaynu u baahannahay inaynu sameyno gradient. gradient waxaa lagu magacaabaa dhowr color marka isku dhex jiraan, 2 ha noqdaan 3 ha noqdaan, gradient ayaa lagu magacaabaa. qaybtan waxaad imaataa marka toolka gradient-iga aad imaanaysaa.
kadib qaybtan gradientiga soo fur ee sare meeshan waxaa kugu diyaarsan marka preset diyaarsan ayaa kugu diyaarsan almuhim qaybtan waxaa kugu diyaarsan naqshadaad u baahantahay aad dooranaysaa sidoo kale naqshadaad u baahantahay wax waad ka bedeli kartaa adigoo qaybtan coloriska uu ka kooban yahay soo furaya kadib colorkaad u baahantahay aad dooranaysaa marka gradientiga aynu soo dooranay si aan hadda inta ugu buuxino like point ayaad kasoo bilaabaysaa meel geeskaad u baahantahay aad kasoo bilaabaysaa geeska kale aad ku geynaysaa kadib sidaan ayaad u samayn kartaa haddii aad u baahantahay waad kala rogi kartaa qaybtan hadda aynu kasoo bilaawno intaynu soo marsiino qaybta madowga ayaa dhankan imaanaya waad ujeedin ayaan filayaa sidoo kale gaduudkan inta ayuu imaanaya marka dhankaad u baahantahay aad ka bilaabi kartaa waad ujeedin ayaan filayaa marka almost anaga hadda waxaynu u baahannahay sidaan inaynu ka dhigno kadib waxaynu u baahannahay waxyaabaha uu ka kooban yahay thumbnailkeena inaynu soo gelino hadda meeshan waxaa igu diyaarsan marka sawir maxamed saalax ay igu diyaarsan drag and drop ayaan soo sameynayaa kadib waxaan keenayaa marka meesha aan ku shaqeynaya aan keenayaa copy aan leeyahay copy markaa dhahdo waxaa kusoo furmi doona laba daaqadood marka ma create document cusub aad u baahantahay inaad abuurtid mise documentiga hadda ku diyaarsan ayaad u baahantahay inaad dhigtid marka qaybtan waxaan ku dhufanayaa marka add current ayaan ku dhufanayaa marka sidoo kale qaybtan waxaad doorataa marka move toolka ayaad dooranaysaa kadib sawirkaaga meeshaad u baahantahay aad dhigaysaa almost hadda qaybtan ayaan dhigaynaa sawirkeena sidoo kale sawirkeena xoogaa waxyaabo badan ayaan u baahannahay inaynu ka bedelno haddii aad u baahan tahay adjustment badan inaad ku samaysid sawirkaaga qaybtan adjustmentiga soo fur meeshan marka waxyaabo badan ayaad ka samayn kartaa color balance ayaad ka samayn kartaa crop ayaad ka samayn kartaa black and white haddii aad u baahan tahay ayaad ka samayn kartaa marka qaybtan adjustmentiga asxaabtii photoshopka si fiican u yaqaano programkan easy way aad ugu fudud yahay waana online marka anaga hadda waxaynu u baahannahay sawirkeena dushiisa ayaan imaanaya qaybtan hadda layers ayaa noogu diyaarsan qaybta layerska ayaan right click leeyahay kadib waxaa kusoo furmi doona marka blend mode ayaan ku sameyn doonaa insha allah xoogaa qaabkaas ugu yara qurux badnaaday markaan blend mode aan ku sameeyo sawirkan hore ayaan usoo baratigareeyay waad ujeedin ayaan filayaa blend mode ayaan ku sameeyay marka qaabkan aad ujeedin marka qaybtan ayaan kusoo laabanayaa sawirka ayaan waxaan leeyahay right click kadib waxaan soo furayaa qaybtan blend mode-ka marka qaybta blend mode-ka markaad soo furtid waxyaabo badan ayaa ku diyaarsan midkii ku qanciya ayaa dooran doontaa insha allah yani hadda qaybtan ayaan doortay sidoo kale qaybtan transparent ayaad ku sameyn kartaa oo xoogaa iftiinka waa ka dhimi kartaa shaygaad u baahan tahay meelahan ayaan ku dayn doonaa 71 oo kale kadib waan loo gareyn doonaa insha allah sawirka log ayaan ku dhufanaya sawirka marka hadda nagama dhaqaaqi doono sidoo kale background-kana waa loo gareynayaa right click ayaan leeyahay log ayaan ka dooranayaa marka sidoo kale waxaynu u baahannahay qoraal inaynu ku qorno thumbnailkeena waxaan soo furayaa marka qaybtan tiga ayaan soo furayaa ama texiga kadib qaybta aad ku shaqeynaysid work area ayaad click ku siin doontaa kadib qaybtan waxaad ka doorataa marka add ayaad ka dooranaysaa marka add markaad ka dooratid oo kale double click si qoraalkaad u baahantahay aad ku qori doontaa ani hadda mo ayaan qoray mo kadib qaybtan waxaad ka samayn kartaa marka colorkaada ayaad ka bedeli kartaa qaybtan sare fiilka colorka cadaanka oo kale waa ku qanacsanahay size-ka haddii aad u baahan tahay inaad soo weynaysid qaybtan size-ka soo fur size-ka sidaan ayaad usoo weyneyn kartaa sidoo kale farta haddii aad u baahan tahay inaad ka bedeshidna qaybtan soo fur fartaad u baahan tahay meeshan ka dooro marka waxaan kuula talinayaa sidoo kale markaad sameynaysid design oo kale hadda kan waa design thumbnailka waa design waxyaabo unique ah tusaale ahaan farta aad isticmaali sidoo kale inay isku mid ahaato haddii farta ay leedahay way fiican tahay bold oo kale far family waxaa waaye farta in qaybo badan ay ka kooban tahay marka arialkan ayaan isticmaali doonaa insha allah marka sidoo kale waxaan kula talinayaa marka qoraal iyo waxyaabo kale markaad sameynaysa oo designkaada uu ka kooban yahay mar walba alignmentiga inaad la socotid sidoo kale waxaynu u baahannahay marka qoraalkan inaynu koobiyeyno control c control v ayaan leeyahay sidoo kale waxaynu u baahannahay qoraalkan ayaan bedelaya waxaan ku qorayaa marka saalax ayaan ku qorayaa sidoo kale marka qoraalka asigana midkan waan yareynayaa marka sidoo kale mar walbo aad wax move gareynaysid qaybtan usoo laabo move toolka marka sidoo kale designkeen hore markaad fiirisiin qoraalka shadow ayuu leeyahay shadow waxaad ka samayn kartaa qoraalkaad u baahan tahay dooro kadib qaybtan toolka texiga soo dooro qaybtan styleka soo fur wax badan aad ku samayn kartaa marka styleka meeshan marka anaga hadda qaybtan effectiga waxaynu isticmaali doonaa shadowga qaybtan colorka soo fur marka shadowga aad u baahan tahay dooro ani hadda black ayaan u baahanahay black ayaan dooranayaa sidoo kale hadda waad ujeedin ayaan filayaa mo-da shadow oo madow ayay yeelatay sidoo kale qoraalkan hoose ayaan dooranayaa qaybta waxaan soo furayaa styleka qaybtan shadowga ayaan soo furayaa colorka ayaan soo furayaa madow ayaan ka dhigaya okay ayaan leeyahay
marka hadda qoraalkan markaad fiirisiin oo kale wuxuu qaatay shadow ayuu qaatay waad u jeedin ayaan filayaa shadow aad u qurux badan marka thumbnailskan wax badan oo saas kama koobna sawirkan iyo gradientigan iyo qoraalkan ayuu ka kooban yahay almost marka toolkan waxyaabo badan ayaad ku samayn kartaa intaan laguma sameeyo waxyaabo badan ayaad ku samayn kartaa muhiimaddu waxay tahay inaan kusoo gaarsiiyo toolkan iyo qaabka loo isticmaalo iyo designada qaabka loogu sameeyo waana free toolka marka haddii aad u baahan tahay marka inaad save garaysatid markaad dhammaysid wax walba ku saabsan designkaada qaybtan waxaad imaataa fileka imow sidoo kale qaybtan waxaad ka doorataa markaa save ka dooro save markaad ka dooratid marka daaqadan ayaa kusoo furmi doonto qaybta marka file type iska fiiri marka haddii aad youtube kusoo upload garaynaysid jpeg kuu noqdo quality-ga mar walba marka 100% ka dhigo sidoo kale qaybtan kale markaad fiirisay marka high-ga ku saarnaado kadib download dheh marka design-kan hadda sidaan aynu kusoo dejinay qaybtan waxaan ku dhufanayaa marka open file ayaan ku dhufanayaa marka waad u jeedinayaan filayaa thumbnail-ka aynu soo sameynay sidaan aynu hadda computerka gudihiisa aynu ugu shubnay marka sidoo kale saaxiibayaal waxaan idin la wadaagayaa marka qaybtan lagu magacaabo remove background ama remove pg qaabka loo isticmaalayo waxaan dooranayaa marka remove pg ayaan dooranayaa marka toolka qaybtan lagu magacaabo remove background waxaad ku sameyn kartaa sawirooyin haddii aad u baahan tahay qaybta gadaale aad ka jari kartaa sawirkaad u baahan tahay aad soo dooranaysaa qaybtan waxaad ku dhufataa marka open image aad ku dhufanaysaa marka sawirkaad u baahan tahay markaad soo dooratid programka automatic ahaan sawirkaad soo dooratay backgroundka gadaale ayuu ka jari doonaa waad u jeedinayaan filayaa sawirkan ayaan soo doortay automatic wuxuu sameeyaa marka backgroundka ayuu ka jaray sawirka marka qaybtan waxaad ku dhufanaysaa marka download aad ku dhufanaysaa si aad u download garaysid sawirka kadib sidaas aad ula soo degtay sawirkii aad qaybta gadaale ka jartay marka saaxiibayaal waxaan rajaynayaa dhammaantiin aad ka wada faa'iideysan doontiin website-kan lagu magacaabo Pixlr-ka linkiisa waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose videoga description-ka haddii aad tahay designer waa software free aad ka faa'iideysan kartid haddii aad tahay qof sawiro hagaajiyo waad ka faa'iideysan kartaa marka toolashiisana waa toolal dhammaantooda free ay wada yihiin waxaan rajaynayaa marka dhammaantiin aad ka wada faa'iideysan doontiin walaalkiin Adam Nuur Xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh